ka codsanaya inaad si fiican uga faa'iidaysatid. haddii aad iga daawanaysid YouTube channelka subscribe saar si aad ugu xirnaatid muuqaalka like saar calaamada gambaleelkana furo si aan kugu dhaafin taxanaha markii aan soo geliyo. sidoo kale haddii aad iga daawanaysid Facebook waxaan ka codsanaya inaad muuqaalka like saartid page-kana aad follow dhaadid casharkana share garee si aad dad badan ugu faa'iidaysid. wixii fariimo ahna comment ay ugu reeb gaar ahaaneed ay hayeen kuwa ay si weyn bulshada wala socdeen. Cabdikariin Cali Shaax ayaa ka mid noqday fanaaniinta caanka ah ee reer Hargeysa muddooyinkii ugu dambeysana waxa uu ahaa Hargeysa mid ku nool aan dhanna u dhaafin. hase ahaatee wararka waqti xaadirkan soo baxaya ayaa ah in Cabdikariin Cali Shaax uu gabi ahaanba fanka isaga fadhiisan doono kadib showga uu u qaban doono qurbo joogta, taas oo uu sheegay. waxaana hadalkan aan ka soo xignay wariye ka tirsan wariyaasha Somaliland oo waqti xaadirkaasi ay isu dhow yihiin, waxaana uu ahaa mid boggiisa Facebook-giisa ku daawacay qoraalka dheer ee uu u soo gudbiyay asxaabta iyo taageerayaashiisa. waxaana baraha bulshada qabsaday arrinta fanaanka iyo sidoo kale sababta ku kaliftay inuu fanka isaga baxo. dadka qaar ayaa sheegay in eheladiisa iyo dadkiisa iyo faamilkiisa ay ku booriyeen in uu fanka isaga fadhiista, halka dadka qaarna ay ku tilmaameen in xaaskiisa ay tahay shaqsiga koowaad ee waqti xaadirkaasi ku boorisay in uu isaga baxo fanka. si walba haatee Cabdikariin Cali Shaax waxa uu ka mid ahaa dhalinyarada reer Hargeysa kuwooda aadka loogu jecel yahay dhanka fanka, waxaana muddooyinkii ugu dambeysay uu ahaa mid fanaannimadiisa ay ahayd mid ay aad uga dhex muuqatay. waxaana heesaha kala duwan ee fanka uu ku soo galay iyo kuwa waqti xaadirkan uu caanka ku noqday ay ahayd mid si weyn loo dareensanaa. haddaba asxaabta iyo taageerayaasha Cabdikariin Cali Shaax ayaa ka soo falceliyay arrinkani iyo sababta waqti xaadirkan ku kaliftay, taas oo badankooda dadku ay ku farxeen marka laga reebo in yar oo doonaysay in fanka uu ku sii jiro. muddooyinkii ugu dambeysay ee lasoo dhaafay waxaa fanaannimada isaga baxayay fanaaniin aad u badan, kuwaas oo sanadadii lasoo dhaafay 19 iyo 20 ay hayeen fanaaniintii ugu badnaa ee fanka isaga fariistay. waqti xaadirkana ay tahay in Cabdikariin Cali Shaax uu wadadii uu fanka uga fariisan lahaa uu hayo, lana filayo in habeenka ugu dambeeya showgiisa uu kusoo qatimayo Hargeysa, halkaasi oo qurbo joogta Somaliland ee ka yimid dalka dibadiisa uu halkaasi ugu qaban doono. Cabdikariin Cali Shaax ayaa fanaaniin fara badan oo ay asxaab iyo taageero ay hayeen ay gabi ahaanba aad uga xumaadeen hadalka ka soo yeeray waqti xaadirkan ee ah in uu fanka isaga baxayo. arrintani ayaa waxaa soo dhaweeyay fanaaniintii hore fanka isaga baxay. fanaaniinta ayaa sheegay in fanku ay dan ugu jiraan qaarkooda, halka qaarna ay lacag ka sameeyaan, waxaana qaarkood ay sheegeen in fanaannimadu ay tahay wax dulli ah. markaad fanka ku sii jirto waxaad noqonaysaa laba mid kasta oo kugu adagna waxay tahay cibaadada iyo sidoo kale in alla ka cabsiga, waxaana bulshada mar walba ugu baaqaysaa xaaraanta iyo macsida, maadaama showga la qabta ay yihiin dadka dhalinyarada kuwa isugu yimaada halkaasina ay macsi ka dhalato. fannimadana waa mid aan heer laga gaarin, waxaana muuqatay muddooyinkii ugu dambeysay fanaaniinta fanka ka baxaysa in ay mar walba sheegayaan in qofku inuu fanaan noqdo fankana ku sii jiro ay tahay dullinimo tii ugu weyneed, waxaana ay sheegeen lacagaha laga helo in ay tahay rasaas qof quudanaya oo kale. si walba haatee fanaaniintu marka ay nolol ka wanaagsan nolosha fanka helaan waxay noqdaan kuwa isaga baxa. badankoodu waxay inta badan noqdaan kuwa ganacsiga iska samaysta, halka qaarna ay nolol ka macaan helaan, taas oo ay sababto ehelada iyo sidoo kale xaasaskooda. waxaana baraha bulshada muddooyinkii ugu dambeysay muuqatay in fanaaniintii ugu dambeeyay ee fanka ka baxay ee ay ugu dambeysay Hiba Qubaade in sayigeeda uu ka saaray fanka xajkana uu geeyay, iyadoo xajka joogtana la ogaa in ay gabi ahaanba fariin soo dirtay ay ku sheegayso in heesaheeda iska tirtiraan fankana ay sidaasi uga huleeshay, taasi oo ay sheegtay in uu sabab u ahaa ninkeeda. waxaana la filayaa in fanaaniin kale oo Soomaaliyeed oo fanka ku jiray in ay iyaguna isaga bixi doonaan, taas oo bulshada Soomaaliyeed ay jecel yihiin in fanaanka asxaabta iyo taageerada u yihiin in uu dhanka wanaagsan u bayro. waxaana muddooyinkii ugu dambeysay hayeen fanaaniintu kuwa qaarkoodna ay soo dhaweynayeen, qaarna ay gabi ahaanba ku sheegayeen in fanaanku uu fanka isaga baxa in ay tahay mid meel kale uu lacag ka helay ama lagu biilinayo. si hore looga soo horjeesto oo kale fanaanka Maxamed Biike oo lagu tilmaamay fanaaniinta qaar in ay ku sheegeen in Biike fanka uga baxay sababo aan
caqiidadiisa iyo sidoo kale rabitaankiisa aan ahayn ee lacago kale uga baxay. Waxaana muddooyinkii ugu dambeysay ay hayeen fanaaniinta qaarkood kuwa sheegaya in uu doonayo Maxamed BK inuu dib ugu soo laabto fanka Hargeysa, halkaasi oo qurbo joogta Somaliland ee ka yimid dalka dibadiisa uu halkaasi ku qaban doono. Cabdikariin Cali Shaah ayaa fanaaniin fara badan oo ay asxaab iyo taageero ay hayeen ay gebiyahaanba aad uga xumaadeen hadalka ka soo yeeray waqti xaadirkan ee ah in uu fanka isaga baxayo. Arrintani ayaa waxaa soo dhaweeyay fanaaniintii hore fanka isaga baxay. Fanaaniinta ayaa sheegay in fanku ay dan ugu jiraan qaarkood, halka qaarna ay lacag ka sameeyaan. Waxaana qaarkood ay sheegeen in fanaaninnimadu ay tahay wax dulli ah. Markaad fanka ku sii jirto waxaad noqonaysaa laba mid kasta oo kugu adagna waxay tahay cibaadada iyo sidoo kale in alla ka cabsigaaga. Waxaanad bulshada mar walba ugu baaqaysaa xaaraanta iyo macsida, maadaama showga la qabta ay yihiin dadka dhalinyarada kuwa isugu yimaada halkaasina ay macsi ka dhalato. Fannimadana waa mid aan heer laga gaarin. Waxaana muuqatay muddooyinkii ugu dambeysay fanaaniinta fanka ka baxaysa in ay mar walba sheegayaan in qofku inuu fanaan noqdo fankana kusii jiro ay tahay dullinimo tii ugu weyneed. Waxaana ay sheegeen lacagaha laga helo in ay tahay rasaas qof quudanaya oo kale. Si walba haatee fanaaniintu marka ay nolol ka wanaagsan nolosha fanka helaan waxay noqdaan kuwa isaga baxa. Badankoodu waxay inta badan noqdaan kuwa ganacsiga iska samaysta, halka qaarna ay nolol ka macaan helaan taas oo ay sababto ehelada iyo sidoo kale xaasaskooda. Waxaana baraha bulshada muddooyinkii ugu dambeysay muuqatay in fanaaniintii ugu dambeeyay ee fanka ka baxay ay ugu dambeysay Hiba Qubaad in sayigeeda uu ka saaray fanka xajkana uu geeyay, iyadoo xajka joogtana la ogaa in ay gebiyahaanba fariin soo dirtay ay ku sheegayso in heesaheeda ay iska tirtiraan fankana ay sidaasi uga huleeshay, taasi oo ay sheegtay in uu sabab u ahaa ninkeeda. Waxaana la filayaa in fanaaniin kale oo Soomaaliyeed oo fanka ku jiray in ay iyaguna isaga bixi doonaan, taas oo bulshada Soomaaliyeed ay jecel yihiin in fanaanka asxaabta iyo taageerada u yihiin in uu dhanka wanaagsan u bayro. Waxaana muddooyinkii ugu dambeysay ay hayeen fanaaniintu kuwa qaarkoodna ay soo dhaweynayeen, qaarna ay gebiyahaanba ku sheegayeen in fanaanku wuxuu fanka isaga baxa in ay tahay mid meel kale uu lacaga ka helay ama lagu biilinayo. Si hore looga soo horjeesto oo kale fanaanka Maxamed BK oo lagu tilmaamay fanaaniinta qaar inay ku sheegeen in BK fanka uga baxay sababo aan caqiidadiisa iyo sidoo kale rabitaankiisa aan ahayn ee lacago kale uga baxay. Waxaana muddooyinkii ugu dambeysay ay hayeen fanaaniinta qaarkood kuwa sheegaya in uu doonayo Maxamed BK inuu dib ugu soo laabto